fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh kuna dhufo calaamadda gambaleelka ah si aad u hesho wararka iyo barnaamijyada aan halkan soo gelino waa mahadsantihiin anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya magaca ra'iisul wasaaraha iyo ka xukuumadda dawladda Soomaaliyeed waxaanu cambaaraynaynaa aad uga xunnahay ficillaan la aqbali karin dhacdada ka dhacday dilka lagu laayay dad Soomaaliyeed waan waxba galabsan magaalada Gaalkacyo iyo sidoo kale dilkii ka horeeyay dad sidaas oo kale shacab lagu dilay nawaaxiga Dhuusamareeb ficiladaas ayaanu runtii dawlad ahaan aad iyo aad uga xunnahay oo cambaaraynayna waa ficilo runtii kala geynaya shacabka Soomaaliyeed ee muddada badan dhibaataysna waa ficilo aan sharci islaam aan ku banaanayn iyo sharciga bini aadanka uu ku dhaqmo wada nool aanu ku dhaqmayn oo kala geynaya shacabka Soomaaliyeed walaalaha ah isla markaana qof Soomaaliya oo dalkiisii ku nool oo waxba galabsan baarisna marin dhiigiisa lagu daadiyay oo lagu dilay waxaanu ballan qaadaynaa dawlad ahaan annagoo kaashanayna hay'adaha dawladda ee heer federaal iyo heer maamul goboleed annagoo kaashanayna oday dhaqameedyada annagoo kaashanayna culimada dadka waxgaradka ah ee Soomaaliyeed in ficilkaas lagu sameeyo baaris laxaad leh oo dadkii ka dambeeyay ficiladaas laga qaado tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono oo cadaaladda la horgeyn doono waxaanu tacsi u diraynaa qoysaskii iyo eheladii iyo qaraabadii dadkii ay ka dhinteen dadkaas la laayay sidoo kalena waxaanu ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed inay ka dheeraadaan dadka Soomaaliyeed oo muddo 30 sano ku dhawaada nabadgelyo darro iyo dil iyo dhibaato ku soo noolaa halkii ay ka bixi lahaayeen in hadda ay ficiladaas oo kale ay dhacaan wax aad iyo aad looga naxo weey waxaanu ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay arrinta mas'uuliyad iska saaraan dadka waxgaradka ah iyo madaxda joogta deegaanada ficiladu ka dhaceen inay uga hormaraan dawladda dhexe oo tallaabooyin qaadaan sidoo kale waxaanu ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed inay isdejiyaan in dawladda Soomaaliyeed loo daayo in ay hor keento cadaaladda oo xanuunkii ay marsiiyeen qof aan wax galabsan la marsiiyo dadkii dilalkii kala duwanaa ee kala horeeyay geystay ayaanu ugu baaqaynaa waxaanu ugu ballan qaadaynaa sida ugu dhaqsaha badan in dawladda Soomaaliyeed kiisaskaas u baari doonto waa mahadsantihiin